halka waxaan ka salaamayaa dhammaan dadweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta joogan waxaan halkan fikirkeyga maanta kaga dhiibanayaa kacdoonka baan ee ka jira dalkan jaarka nahay Djibouti kacdoonkaas oo sababay ninkii suuliga lagu xiray ahaa askariga waxaan ognahay inagoo Soomaali markana waxaan ognahay dareesku inuu qiimo badan u leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaanba aad iyo aad baan horta uga xunahay Soomaaliland ahaan ninkaas falka lagu la kacay dareeska xiran aad iyo aad baan uga xunahay sidoo kale waxaan leeyahay oo fariin u dirayaa dadka Djibouti jooga ama Djibouti ku dhaqan yar iyo weyn cid kasta oo ku degan Djibouti waxaan leeyahay fadhiga ka kaca oo iska rida kaligii taliyaha idin gumeyshanaya Ismaaciil Cumar Geelle waynu ognahay Ismaaciil Cumar Geelle nin kasta oo kor u soo kaca oo madaxa la kaca oo doonaya wadanka inuu horumar gaarsiiyo inuu suuli ku rido kuwa xabsi ku riday baa jira kuwa waxa jira intuu qasaacadeeyay ubada ku tuuray baa jira marka waxaan leeyahay dadweynaha Djibouti waxaan leeyahay fadhiga ka kaca oo iska qabta kaligii taliyaha idin gumeyshanaya ciidankiini iyo shicibkiiniba suuliga ku guraya ilaahay khayrna waafaji waxa aan u arkaa arinta fikirka aniga iyo dad badan oo aniga ila qabaaba ay u arkaan horta xukun walow raagaba oo durujaan noqdaba nacaybkiisa hoos yaalla dadka hal iyo good xukunku ku raagana waxaad moodaa inay iyagu hanta ay iska leeyihiin oo aabahood ay ka dhaxleen xukunku iska yahay oo sibay ugu cuna duuban yihiin ninka muwaadinka ah ee diidan maamulka markaa jira iyo ninka qarandumiska ah ayay si ula wada macaamilaan hal iyo goor diktaatooriyadu aad iyo aad baanu ninkaa uga xunahay ninka bayloodka ah ee meesha lagu xulay aad baanu uga xunahay waliba haddaan reer Hargeysanay aad baanu uga xunahay dadkayga badankayga iyo shacabkayga oo dhami waxaanaanu uga xunnay Cumar Geellena waxaan odhan lahaa waar qaar badan baa waxa soo kala eeday aroortan adigoo shacab si aad dadkaaga u dhex joogto adnaha urursanin eeda fara badan dadka fikirkaaga ka duwanna ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala khalqigiisa markuu abuuray qaarna rumeeyeen qaarna beenayeen labadaba wuu risqaa haddaad tira dadku ay wada rumeeyo ku wada rumayn maayaan meesha ku wareeri ayaan ku odhan lahaa anigu Cumar Geellow ninka iyo kuwa kale la xidhan siyaasadda u xidhan iyo kuwa halkan aad ku soo weerartay ina Geella Arabiyo ragii kale la midka ahaa ee halkan joogay dhammaantood waanu ka wada xunahay weerar baa laga soo daayay annagaadna faragelisay iyagaad faragelisay cid walba waad faragelisay waxaan ku oran lahaa dadka siyaasiyiinta faraha ka qaad xornimadooda u soo celi dalkaaga daji muxaalad qabataa doorasho xor ah oo dadkan cunaha haysa siida ilaahay baa dadka abuurtay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa salaamaya dhamaan ummadda Soomaaliyeed ku meel joogay kuwa Djibouti kuwa dhulka kala deganba mar labaadka horta arrinkan waxa social media la soo dhigay oo la suuliban ku qoranahay ayaa waxaan sameeyay ilaahay baa yaqaan wax ka jira inagu ma ogin social media hadii jeer been baa lagu boonbooniyaa marka waxaan kor la ummadda reer Djibouti qofka hadii la xiro waa sharci baa ka dhaxeeya xarigu waa sharci beelatay maxkamad baa la keenay doonaa haduu la xiray maxkamaduna hadii wax ku weydina way deesiideen hadii wax ku heshana way xukumi doontaa laakiin in wadanka la burburiyo ma aha wadan burburiyo oo lagu buuqa Soomaalidu soo galay anagu saaka bilaa taalin naga dhigay inama aruuti bilaa taalin ka dhigay bilaa dhaqaalo naga dhigay bilaa ujeedo naga dhigay bilaa meel boo ma soconaba marka ummadda Djibouti waxaan lahaa wadankiina ilaashada waxa la hayeen Maxamed Diire arrinta imka Djibouti ka taagan waa kacdo waqtigeedii gaadhay dadka reer Djibouti waxaan furayaa inay heeriyada iska tuuraan oo ay gumaystaha iska ridaan waxaana waa wixii kacdoonkii carabta ka dhacay buu ka haray waynu garanaynaa in hogaamiyihii wadanka Tunisia Seynu Caabidin bin Ali oo kale Masar oo kale Liibiya oo kale ninka la yiraahdo Suudaan Umar Xasan al-Bashir waynu garanaynaa marka waxaan leeyahay shacabka reer Djibouti kacdoonkan way la habsaameen ninka 22 sanadood xukumayay ee dadka gaagaabiye xasuuqay waa inay iska ridaan kacdoonkana waa inay laban waayo ninku itaal male dadku hadduu xukumo waa dad shacabka hadduu ku kaco awood male wuxuu ku fadhiyaa waa awoodda shacabka marka shacabka reer Djibouti waxaan halkan hambaliyo uga dirayaa waa la habsaanteen ee ninkan iska rida habeeniya maalmaha seexanina waynu aragnay ninkii duuliyaha ee bayloodka ahaa ee difaaca qaranka u tababarnaa halka uu ku jiro iyo sidoo jirkiisu u googo'ay